محمد إدريس halka uu ku dhashay iyo magaca ruuxa waxay anigu ma weydiin goortu dhashay su'aalaha si fiican oo la socdo wax ugu soo noqon doono god si hadda qodba ku dhici doonta maadaama aan sameeyay kulliga group 11ka waxaan dul maray kalimaadka ku dhashay magaca kaamila فلتفضل فضيلة مشكورا للدراسة. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دكتور علي ورطة وحنا اطمئن وابشر اسكب بشارة يسوع قلبنا يقول يقول إذا يقول الله ما ترتمي سؤال فردها هذا الدعي ماركا مجالس نواب بحداء ضمع كان إنه كوجر وديع كنتها ماركا اسكب الجنوب إن شاء الله. waxaad weydiisay qalashada iyo arintaas runtii waqtiga bitaxdiid sida hadda dadka isbitaalada ku dhashay ama meelaha taariikhdeeda la yaqaan ku dhashay anigu kuma dhalan waxaan ku dhashay meel baadiye ah geed hoostiis ah isbitaal ahayn sida soomaalida hore u badnayd weliba iyadoo safar la yahay oo musaafir la yahay oo reerku naqraac yahay naqawaad taqaasoo maaha roobar gudo meeshaas ugu hayaamayo iyadoo reerku hayaan yahay oo naqraac yahay ayaa hooyo allah u naxariistee iyadoo awr saaran sida la ii sheegay awrkiina waa soo gaaray magaciisana gaaridi baa la dhihi jiray ayaa isagoo la intifaacsado baan garaadsaday marka awrkaasay saarnayd hooyo iyadoo calooshii igu sidaan raxmatullaahi tacaala calayha geedka hoostiisa lagu leexiyay iyadoo islaamihii halkaas waa ku dhalatay baa laygu yidhi geedkiina waa lay tusay horta taariikhdu bitaxdiid cid u garanaysaa ma jirto laakiin dadkii magaalada joogay oo maaragtay iyagu waxaa taariikhaha la socday ama bilaha la socday sida waalidka allah u naxariisto iyo ninkii walaalkay iga weynaa oo curadka ahaa axmed idriis diijiro isagu markaa cadan joogay ayaa waxay ii sheegeen inay ku aadanayd 1958 bisha bitaxdiid ma garanayno laakiin waqtigaa haddii laga qiyaaso sheekh cabdirashiid waxaan ka weynahay ilaa 6-7 sano meelahaas alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin sheekh cali isaguna wiil yar wey wuxuu ku soo dhadhawaanayaa kuwa aan dhalay ku soo dhadhawaanaya taasna ma aha takbiir sheekh cali wuxuu soo daliishadaa oo xusuusiyaa in yar hadda halkaa ku sii daro oo ka sii farxiyo gurigayga maka wuxuu yidhahda miyaadan xusuusan markaan imaan jiray 80aadkii oo wiilkaaga cabdishakuur baan meel wada fariisan jiray ma xusuustaan buuri markaa imaan jirtay haddaa ma xusuusan kartid yidhi ani waa wiilkaagaa la ciyaari jiray على كل حال رجل تاس وقت جاس حددتها تقريبا إلهي بس قرنية ماشي أقول شيء ودقمة قندلة بديه هذا وقول كباري صوماليا أبى الله نحرسته يسوي يقد ولا ورجع بعض القاركيس واسكم مغلان لكن هذا مش شيء هدي أي ما رفتي واحد جري المقدية أبى يسوي مهاجرة ودول كاسي من صوماليا وحنكي من تلك إريتريا يقيمي وحسود دقي دول كاس بريقة وكبر واقوبي حول بدن بومارة كان عصدوها مقالوا ينكاس ودن بوساسو يو قندلة يو عرولا يو حابو يو قسلي يو دول كاحيبتا صدن بودقي وتكام بقولها الحمد لله مركا يسوي هالكاس يقيمي لكن أنا بصومالي بانا شبابكم اللي أفهام iyo dhaqan ahaan iyo deegaan ahaan intaba iyo shucuur ahaan waxaan ahay Soomaali magaaladaas ku dhashay alxamdulillah iyada ku barbaaray dugsiga quraanka sida ardayda yani Soomaalida dhaqankeedu ahaa aan ku galay kadibna iskuulka waraadkiisa ku dhigtay kadibna xamar baan muweerigay magaalada Muqdisho iskuulka halkaas aan ka galay waxyaalaha igu tajribo fiicnayd markii aan dugsiga dhexe dhiganayay waxa ka mid ahayd ololihii reer miyiga وأنا كنت قايم قلي كوني سجال بقولي تطوات يا أفرتي تاسو أنا كنت قاطع دروس توجو وين هذا كوسي هور مرينا يا
jacaylka dhulka Soomaaliyeed iyo Soomaalinimada iyo barashada dhulka Soomaaliyeed waxa la geeyay aniga oo qandalo ku dhashay oo bari ka imi oo Muqdisho markaa ugu dhaqnaa baadiyaha magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellada Dhexe la geeyay arday 16 jirna waana halkaas yani dhaqanka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed isdhexgalkeedii iyo wax badan ka faa'iideystay aadiyad kadibna waxaan u baxay dalka dibadiisa 1925 bishii labaad waxaan galay dalka Sacuudiga ilaahay amarkiis iyo ajaa'ibta iyo qudrada waxaan ku socday Kuwait risq raadis baan ahaa nin dhalinyaro ah oo 19 jir ah laakiin 3 maalmood baan waxaan qaatay oo ah transit dalka Sacuudiga markii la yidhi cimriyo waxaas kadibna 3 maalmood waxay noqotay 43 sano ilaa hadda inaan Maka deganahay ilaahay fadligiisa meesha qofku marka wax loogu qorayo ama cimrigiisu uu noqonayo ama qadartiisu ay noqonayso googa meeshii dhulka ilaahay ugu barakaysnayd ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala deegaankayga ka dhigay iyadan maaragtay intii cimrigayga ilaa waqtigaas 19 jirka aan ahaa aan ka safro aan meelaha aado Yurub aado Mareykan aado Aasiya aado Soomaaliya aado in kala aado laakiin deegaankayga rasmiga ahay wuxuu ahaa ilaaha dana yahay magaalada barakaysan ee Makka Mukarrama iyada ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala hanuunka iyo dacwada iyo diinta jacaylkeeda ilaahay ugu siiyey ma dhigan anigu sida saaxiibaday waqtigaas yimi waxay galeen jaamacadda Makka iyo jaamacadda Madiina anigu labada jaamacadood midna ma gelin ilaahayna ima qadarin laakiin waxaan isleeyahay waa ka sii fiicnayd baan helay oo ah inaan culimada hoos fariisto oo xarameynka labada masjidba aan culimadeeda wax ka barto masaajidda kaleeto culimadii casrigan soo martay muslimiinta ee ducaadii ugu waaweynay aan ilaahay wuxuu ii qadaray inaan hoos fariisto oo aan wax ka akhristo muddana aan la noolaado alxamdulillahi rabbil caalamiin waxaan ku fikri jiray inaan iska noqdo daaciye waqtigaas aan 20 jirka ahaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa ii xaqiijiyey quraanka sidii Sheekh Cabdirashiid yaraantii kuma aan xifdin waa dul maray oo waa bartay laakiin ma aan xifdin quraanka waxaan xifdiyey anigoo weyn oo caruur leh oo reer leh taasna waxay daliil u tahay qofku haddii ay ka go'an tahay sidii Sheekh Waday uu yiri diyaar ma una inaynu quraanka xifdino haddii uu qofka niyad ka tahay diyaarna uu yahay waa xifdi kara da kasta uu yahay waxa xalqada xaramka markii aan sheekha ku dul akhrin jiray ama dhiganay xifdiga nala dhigan jiray in aniga markaa iga weynaa 70 jir oo Bakistaani oo dalka Bakistaanki wuuna xifdiyay quraanka 5 sano kadib wuu dhameeyay marka quraanka waqtiga kasta waa xifdin kartaa alxamdulillahi rabbil caalamiin inta ka dambeysay hadee shaqada adduunka oo de meeshan aan wadalkan ka shaqaysan jiray xeelo kala duwan oo shirkadaha iyo waxaas laakiin soddonkiisa sano ugu dambeysay dacwada iyo arrimahaas aan baan u badnaa ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu igu sugo dariiqaas ilaahayna subxaanahu wa tacaala uu khaatimada iigu hagaajiyo duruusta يعني نولشا سيان وركو كوغوسو غابيو درسيga koowaad oo noloshaas yani 60 sano hadda kor madaxa kala baxday aan isleeyahay waa qaadan kartaa dhalinyaraduna ay ka faa'iideysan karaan waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xirnaantiisa iyo kitaabka quraanka kariimka jacaylkiisa إلهي سبحانه وتعالى وحقوقه فريا جميع الأبواب أبواب كستامة الباب كستوى قاحر مركا نعمة وقوه الرئيساء مجلسي وقوه الرئيان السلاية نولشا أن نقدر كريم معان كذا وكتاب القرآن وحي كتاب إلهي سبحانه وتعالى تاسوا درسي ويه درسك اللبان محولي قفك هدي وليه هي همت عالية وميل إنه قارئ أما هدف يوجد وليه هي وبهي
himadaasu inay xambaarto iyada u noqonaysa labada baar aan xustaa markii masalan qur'aankaan xifdinayay macallinka salaada fajar saacad ka hor baan gurigiisa ugu tegi jiray kadibna waan soo qaadi jiray macallinka waxaan ku wada tukan jirnay xaramka shariifka ah ee kacbada kadibna darsiga ayaan uga bixi jiray kadibna gurigiisa ayaan ku celin jiray kadibna anigu markaasaan shaqadayda aadi jiray marka 2 saac ka hor waa inaan diyaar garoobaa salaada fajar ka hor ama saacad ugu yaraan ka hor si aan u dhibisto u tago isaga u soo qaado aan u geeyo haddana u celiyo haddana darsi ka soo haddana aan soo noqdo intaas waxaa xambaarayay jacaylka marka haddii aad himadeeda hayso waxba kuguma adkaanayaan waxba sacab kuguma noqonayaan ha culaysan taasna waa qodob qodobka saddexaad oo aan ku darayo waxa weeye يعني سفرتن iyo dacwadan badan duruus badan bay ku siisaa laakiin hal darsi ayaan isleeyahay waa la wadaagi kartaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ikhlaaska aan ugu risaaqo ducaada iyo dhalinyarada dadka dacwada diinta ilaahay doonaya ikhlaaska ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigaaga inuu daacadnimo ka ogaado cid kaloo aad la wadaagi karto ama kula wadaagi kartaa ma jirto cid kaloo aad ugu mujaamalayn karaysaana ma jirto laakiin waa midda najaaxaaga ama guushaada koowaad keeni karta cid inaadan ku mujaamalayn cid idaadan tusin ilaahay qalbigaaga ha ka daalacdo waxa runtu tahay runna ula imo waad ku najaxaysaa dacwadaada ama diintaada ama wixii aad wado nooc kastaba ha noqdo midda labaadna waxa weeye dacwadaas waxaad wax ka keeni kartaa inaad naftaada siiso naftaada inaad siiso kulligeed say u dhantahay waa iyada keenayso waxaa laga yaabaa dhinacyo badan oo kaleeto inay kaaga tagaan waa sax hadda masalan aniga waxaan qirsanahay inay waxyaalo badan oo kale igaga tegayaan carruurtaydii waxyaalo badan oo xaq ay u lahaayeen inaanay helayn reerahaygii inaanay helahayn anigii naftaydii inaanay helahayn waxyaalihii adduunka baan ka hadlaya laakiin haddii aad doonayso mabda ama risaalo ama ujeeddo inaad xaqiijiso naftaada inaad siiso way u horto waxyaalo kaloo badan baad ku weydaysaa waa sax oo kaa dheelinaya iyagana waxaan weydiistaa ama xaasaska ha noqdaan ama ilmaha ha noqdaan cudurdaar iyo cafis waayo waktigii iyaga badan oo marar badan aan siin lahaa ayaa wuxuu ku baxayaa ummadda iyo dacwada waa laga yaabaa marka inay iga cafiyaan oo iga siiyaan laakiin adiguna markaasunbaad waxay ku keeni kartaa mabda'a aad xambaarsan tahay taasna waxaan isleeyahay waxyaalaha duruusta waxaan kaloo idiin sheegayaa oo warku shaftimayaa haddaanu sheekh cali su-aale igula soo noqon dadkan soomaaliyeed ayaan anigu ku soo dhex koray intana ku soo leekaada intana aan ku soo leekaa waxaan aaminsanahay iyagana inaan bartay iyaguna ay barteen saas darteed waxaan idinka sheegayaa waxyaalahooda yacni xumaan badan baa jirta oo laga sheego maanta waxaan idiin sheegaa anigu yacni kalsoonida aan ku qabo dadka soomaaliyeed inay tahay midda aniga najaaxayga qaybta koowaadka ah يعني هدي أن وحكون نجحي أما عمل أن كقولستي بعد الله سببه حقوق كالسوني أنا أن كبقى بضدكاس for example هدي أن مال إمادة وطن ولقي أنا أتجي أما قبل أنا ولقي تورتوا والله ما ذيك قبل هذا الصومالي الأردن لو يعدل لك الصوت بلابه إلا يرأس كمبوني قبل أنا تجي أما أنا دعوة كجرين أما أنا محتوى مجرو تجربة في عمر مركولة قبائل كذا ضد كذا مقالوين كذا وان برتي مرك وانا لا نولا بدو يدبد حدي شيغيا سكود هالد ضد في عنيني ضد رساله يدور افري كرنا اليهين هدي هلان وقالكي ونكسنايو كفر اليهين حلالي وحي لا دورنا شعوبته ادونك ان لغا هلي كرين ان لغا هلايو وميزان وقال اليه بني ادم ويعيبه كلا ولي
laakiin intaasna waa tajrubada aniga aan kala soo baxay saas darteed haddii aan reer kasta ama magaalo kasta ama gobol kasta dad Soomaaliyeed meel jooga haddaan u tago waxaan ogahay ama aan aaminsanahay oo ku kalsoonay inaan ku najixi karo waxaan la yiraahdaa sidaa adigu dadka ka ictiqaado ay adigana ku noqdaan saasana Ilaahay subhanahu wa ta'ala iga siiyay ilaahayna waxaan ka baryayaa khayrkaas iyo maxabadaas inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala noo daageeyo shacala hadaan waxba ku harin wiiliyad inaad tahay ayaan markhaati halkan uga kacay maanta ku yaraanta 1 sano aan gaaweynahay إن شاء الله تعالى سوري